annagu dadka naga xaq u dirirka kuma lihin lid daarood waxaanu lid ku nahay oo la diriraynaa diyaacadka maxamed siyaad bare iyo inta la safan oo xabadda la soo ridaysa kuwaas weeye kuwaan la diriraynaa waxaan oo wanaagsanaa khiyaarta wadaan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la egta ku qabataa waxaan rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryeynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu u saalo ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaadda uu barakeeyay inta awlaadoonka ana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta guurdoonka ana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba muuqaalka la egta ku qabtaa siina shargareeya waxaan rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryeynaa in dambigood iyo dambiga waalidkood beeba u إلهينا وكو عزوما جنة الفردوس الأعلى وعن دمانتن إلهي سبحانه وتعالى أن كوضا برينا إذ والبو حنوصل إنه إلهي حنونك وقدر القادة عثمان نوقو بدلا ومدى صوماليين إلهي إنه سيان نسري يوليبا قرقار دقدقا ربي سبحانه وتعالى وحن ويدي سلنا دمان ومدى صوماليين ميرو بيه جوكتين إلهي حفظيو حاسدكم عن الله إنهي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يف كودا أغسطس كون سقال بقول شقاشن اللحدي مانتا وكالوحا مقدشة كو جيريودي الله ونعريسته جنرال محمد فارح عيديد حليجي سوماليات هذا وحن ايجي دونا جيريدا جنرال محمد فارح عيديد مسجل تا وررك شيغا يا ان جنرال عيديد لا سوميي ونا اول انتي سون لوغو دراي جنرالكا هذا بارينتاس ايان فلانقين دونا هدو الله اود له وسامحو جنرال محمد فارح عيديد وحكم إذا جيسياشي سومري سوماليا وحونا منا جنرال كين لو ديسو تالو سيدا تالو لغو ديسيها الجميال لشيغي سوماليا إني سومرين ونكم إذا سيد محمد عبد الله حسن جنرال محمد فارح عيديد وحو أهاهو قامية دلقات بدن جيسيا إسلا مركانا أسوها الجميل دادك يولي بدلك سوماليات جنرال محمد فارح عيديد وحالا شيغا إن ودمال الدريس كاسيدا إتوبي كينيا إن سوين إي كقبق جرين جنرال محمد فارح عيديد وحنا مقع وسو هويه سوماليا وحنا دلالك دريسكا قاركيس iyo waliba wadamada kale ee Carbeed markaad aadid tiraadid waxaan ka soo jeedaa dalka Soomaaliya lagu leeyahay ma waxaad ka soo jeedaa wadankii General Aidid taas oo muujinaysa heerka iyo magaca uu lahaa General Maxamed Farax Aidid rabbi naxariistii jannaha siiye waxana laga gaabiyay ka hadalka taariikhdii mugaweyneeda uu lahaa General Maxamed Farax Aidid waxana la sheegaa in dadka Soomaaliyeed aysan ay yihiin kuwa si weyn u jecel General Aidid laakiin wariyaashii iyo waliba qorayaasha kama hadlaan inta badan taariikhda General Maxamed Farax Aidid hogaamiyihii ummadda Soomaaliyeed General Maxamed Farax Aidid waxay taariikhyahanada ay sheegaan inuu ku dhashay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan intii u dhaxaysay 1930 ilaa 40 laakiin wuxuu ku soo barbaaray magaalada caasimadda u ah Soomaaliya ee Muqdisho halkaas uu ku qaatay waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe sare iyo waliba midda jaamacadeed wuxuuna sidoo kale jaamacado badan uu kaga soo baxay dalal ka tirsan qaaradda Yurub sida Talyaaniga Ruushka iyo wadamo kale General Maxamed Farax Aidid ayaa taliyaha booliska gobolka Banaadir naqday ka hor dawladii waa ka hor intaysan Soomaaliya xuriyada aysan qaadanin waxaana General Aidid door mar uu ku guuleystay bilada geesinimo taas uu ku helay dagaalkii la galay dawladda Itoobiya General Maxamed Farax Aidid wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ugu horeeyay Soomaaliya ay yeelato محمد فارح عيديد وحا حيري دولدي كعانك ايه دور مركدي مركا اسقبتين هقاميه كعانك محمد سياد بري وحانا جنرال عيديد لو مقعابي سفيرو دلالك الروشكا هندية اي دلال كالي لكن وقت يقودن بيه وحوها سفير كهندية وحونا كتاقاي سفير نمدي واسكا عزيلي اصونا كوبيري هقامياشي كعدونكا وحانا ونقضي هقاميه كعدونكي لقو اريي محمد سياد بري هقاميني جنرال محمد فارح عيديد الله ونحريستي جنرال عيديد ayaa Muqdisho wuxuu dagaal uu kula galay dalal badan oo magaalada Muqdisho yimid waxaana dalalkaasi hogaaminayay dawladda Mareykanka ayaa Muqdisho waxay ku dishay dad kala duwan oo Soomaaliyeed kuwaas oo lagu dilay duqeymo iyo weeraro ay geysteen dawladda Mareykanka waxaana kamid ahaa dadkii indhaha u ahaa bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo lagu laayay guri ku yaal degmada Hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan u dhow isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho halkaasi waxaa lagu laayay dad badan oo Soomaaliyeed kadib markii la sheegay in goobtaasi uu ku sugan yahay General Maxamed Farax Aidid taasna waxay noqotay mid been ah waxaana halkaasi dadka Soomaaliyeed ay ku waayeen dad iskugu jira
bulshada odayaal dhaqan aqoon-yahano dhaqaatiir ay ku jiraan iyo weliba qeybaha indhaha u ah bulshada Soomaaliyeed laakiin ma jirto wax mag ah oo Mareykanka uu ka bixiyay dadka shacabka ah indhaha u ah bulshada Soomaaliyeed ee uu ku laayay degmada Hodan ee gobolka Banaadir laakiin Mareykanka wuxuu sanad walba uu xusaa askar laga dilay magaalada Muqdisho kuwaas oo la sheegay inay dileen ciidamadii ka amar qaadanayay Generaal Maxamed Faarax Ceeydiid dadka aqoonta u leh Generaal Ceeydiid waxay sheegaan inuu ahaa shakhsi isku darsaday aqoonta maadiga midda diiniga iyo weliba geesinimo waxaana lagu tilmaamaa inuu ahaa hogaamiye aad u dulqaad badan isla markaana jecel in Soomaaliya nidaamka dimuqraadiyadda inay ka hirgasho October 3, 1993 waxaa ciidamo ka tirsan kuwa Mareykanka ay weerareen guri ay ku tuhmayeen inuu ku sugan yahay Generaal Maxamed Faarax Ceeydiid laakiin halkaasi waa halka Mareykanka uu kala kulmay jabka iyo darbaxshada xanuunka badan ciidamo ka tirsan kuwa Mareykanka oo tiradooda lagu sheegay 18 askari ayaa ku geeriyooday goobtaasi halka 20 in ka badanna ay ku dhaawacmeen sida dawladda Mareykanka ay qirtay waxaana la sheegay in weerarkaasi uu ahaa kii ay ku baxeen ciidamada Mareykanka kadib markii Mareykanka ay arkeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Mareykanka oo lagu jiijiidayo meedadkooda magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwa nool ay qabteen ciidamo ka amar qaata hogaamiye Generaal Ceeydiid Allahu naxariiste Mareykanka maysan filaynin jabka maalintaasi soo gaaray waana midda ilaa iyo hadda dawladda Mareykanka sanad walba ay xusto dhibaatadii ka soo gaartay magaalada Muqdisho weerarkii laga dilay 18 askari 70 kalena laga dhaawacay Mareykanka ayaa iskaga baxay magaalada Muqdisho laakiin waxaa dagaalka ay u bedeleen mid warbaahinta ah taas oo bulshada lagu nacsiinayo Generaal Ceeydiid laguna tilmaamayo inuu yahay hogaamiye kooxeed laakiin taas ma aha mid sax ah waxaana la aaminsan yahay in warbaahinta Mareykanka oo dagaal kula jirtay Generaal Ceeydiid in wajigiisa wanaagsan ay xumeeynaysa Generaal Ceeydiid ayaa waxaa si weyn kaga baqi jiray wadamada dariska oo hadda soo damca ama soo haweysta Soomaaliya sida dalalka Itoobiya iyo Kenya kuwaas oo xilligii uu noolaa Generaal Ceeydiid aan damici jirin in gudaha Soomaaliya ay soo galaan Allahu naxariistay marxuum Generaal Maxamed Faarax Ceeydiid waxaa dagaalo lala galay dawladda Itoobiya uu ku qaatay dhowr mar bilad geesi Generaal Ceeydiid rabbi naxariistii jannaha siiye wuxuu ahaa geesi aan baqin isla markaana ay ka go'an tahay Soomaaliya inaan dalal shisheeye aysan ku sameynin fargelin wuxuuna ka dhiidhiyay gacaankii dhibaatadii uu ku hayay dadka Soomaaliyeed wuxuuna ka mid ahaa hogaamiyaashii gacaanka ka dulqaaday ummadda Soomaaliyeed Generaal Maxamed Faarax Ceeydiid rabbi naxariistii jannaha siiye 1 Agoosto 1996 ayuu ku geeriyooday magaalada Muqdisho 2 Agoostana waxaa lagu aasay degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir waxaana dadka ay sheegaan in Generaal Ceeydiid uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaal ka dhacay degmada Madiina ee gobolka Banaadir laakiin dadka baara taariikhda ayaa waxay sheegaan in Generaal Ceeydiid la sumeeyay isla markaana ay sumeeyeen dalal shisheeye oo generaalka dagaal kula jiray sida ay sheegaan qubarada wax baarta laakiin Xuseen Maxamed Faarax Ceeydiid oo ah wiil uu dhalay Generaal Maxamed Faarax Ceeydiid ayaa si cad u sheegay in aabihiis la sumeeyay isla markaana uu yaqaan shakhsiyaadka Soomaalida iyo kuwa ajaanibta ee ka qayb qaatay sunta lagu duray Generaal Maxamed Faarax Ceeydiid aakhirkiina uu u geeriyooday wuxuuna sheegay Xuseen Maxamed Faarax Ceeydiid in la yaqaan shakhsiyaadka ka dambeeyay Generaal Maxamed Faarax Ceeydiid dilkiisa suntana siiyay sida ama sunta ku duray sida uu sheegay Xuseen Maxamed Faarax Ceeydiid dhamaanteen maanta waa 1 Agoosto aan u wada duceyno Generaal Maxamed Faarax Ceeydiid rabbi naxariistii jannaha ha geliyo dambigiisana Ilaahay ha dhaafo dhamaantiin soo qora aamiin